ku soo dhawaada warka Halkudhig News qodobada ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah meydka madaxii dacwadda al-shabaab oo lagu dagaalamayay amiirada kooxdaas oo shaki soo kala dhexgalay Koongareeska Mareykanka oo meel mariyay diin cafinta Soomaaliya xildhibaan xidig oo cadeeyay mowqifka isbedel doonka Jubbaland kadib kulankii uu la yeeshay James Swan iyadoo la xaliyay khilaafkii al-Sunni iyo dawladda haatanna wali waxaan la soo xulin baarlamaanka Galmudug maxay tahay sababta xog ayaan idinkaga hayaa iyo Mareykanka oo qaar kamid ah ciidankiisa sida gaarka ah u tababaran ka soo saaray dalka Afghanistan haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 18 bisha December sanadka 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal meydka madaxii dacwadda dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dagaalamayaa iyo amiirada al-shabaab oo shaki soo kala dhexgalay sargaal sare oo kamid ah kuwa u soo baxay al-shabaab ee dhanka hoggaanka sare laguna magacaabi jiray Maxamed Cabdi Nuur oo ku magac dheeraa Marwazi ayaa duqeyn lagu dilay 9kii bishan December ila sirdoon ayaa xaqiijinaya in Marwazi oo meel u dhow degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland lagu dilay oo ahaa xilligan madaxii dacwadda oo loola jeedo ninka ugu sareeya dhanka tashkiilinta sargaalkan sare Maxamed Cabdi Nuur Marwazi oo Soomaali ah kana soo jeeda deegaan ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la sheegayaa in meydkiisa weli aan la aasin oo amiirada sare ee shabaab dood badan ka dhex dhalisay ninka ugu sareeya al-shabaab Abu Ubayda oo xanuunsan ayaa markii loo soo sheegay in Marwazi la dilay waxa uu dalbaday in xubno kamid ah al-shabaab la baaro oo uu ku tuhumayo inay duqeynta wax kala socdeen waxayna keentay kala shaki badan oo shabaab dhexdiisa ah taas ayaana la soo warinayaa in shabaabkii Jubbada Dhexe laga cabsi qabo in dagaal uu ka dhex qarxo ciidamada dawladda iyo kuwa Mareykanka ayaa maalmihii u dambeeyay kordhiyay weerarada dhanka cirka ah ay la beegsanayaan xarumaha waaweyn ay dagaalamayaasha shabaab ku leeyihiin bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya shalay oo u dambeysay diyaaradaha Mareykanka waxay dhowr duqeymood ay ku kala qaadeen degmooyinka Jilib iyo Saako oo ay xarumo waaweyn ay ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab Koongareeska Mareykanka ayaa meel mariyay diin cafinta Soomaaliya aqalka wakiilada Mareykanka ayaa meel mariyay miisaaniyad ku jirtay diin cafinta Soomaaliya sida ay shaaca ka qaaday Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalkaas war-saxaafadeed ay soo saartay ay Ilhaan Cumar ku sheegtay in miisaaniyadda aqalka wakiilada ee lambarkeedu yahay HR 151 lagu xaqiijiyay diin cafinta Soomaaliya waxaan ku faraxsanahay inaan xaqiijino diin cafinta Soomaaliya waxa dul saaran deen dhulka la gashay taasoo dib u dhigtay dhaqaalihii isla markaana malaayiin Soomaaliya ka dhigtay sabool ayay ku tiri Ilhaan Cumar qoraal ay soo saartay tani ma saameynayso kaliya Soomaalida ku nool Soomaaliya balse sidoo kale kumanaan Soomaali Mareykan ah oo ku nool degmada aan matalo sidoo kalena ay ehel ka joogaan gobolka ayay tiri Ilhaan xirmadan diin cafinta waa talaabo aad u weyn oo cadeynaysa horumarka wanaagsan ee Soomaaliya ay sameysay sanadihii tagay tan maahan in loo arko dhamaad balse waa in bilow u noqotaa soo cusboonaysiinta xiriirka diblomaasiyadeed oo lala yeesho Soomaaliya si kastaba miisaaniyaddii ugu horeeyay oo ansixiyay aqalka wakiilada ayaa waxaa dib u soo celiyay aqalka sanadka taasi oo aqalka wakiilada siisay fursad labaad oo diin cafinta Soomaaliya loogu daro miisaaniyadda bilaa hore sanadka soo socda 2020 ayaa la filayaa in IMF iyo Bangiga Adduunka ay si rasmi ah diinta uga cafiyaan Soomaaliya kadib markii ay isku wada raaceen dhammaan dalalka deymaha ku leh Soomaaliya ka hor Mareykanka dalal badan ayaa hore sidaasi u ballan qaaday daawadayaal wanaagga inta warkaad kala socoteen Halkudhig News haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan